Warbaahinta dalka Iran ayaa ku soo warantay in diyaarad nooceedu yahay 737 oo ay saarnaayeen ku dhawaad 180 qof ay ku burburtay meel aan ka fogeyn caasimadda waddanka Iran ee Tehran. Wakaaladda wararka AFP ayaa ku soo warantay in diyaaradan oo ay leedahay shirkadda duulimaadyada ee Ukrian ay burburtay wax yar kadib markii ay ka kacday garoonka diyaaradda Imam Khomeini ee caasimadda Tehran. Lama oga khasaaraha dhabta ee ka dhashay shilkan diyaaradda. Wararku waxay intaasi ku darayaan in diyaaradda oo ku sii jeeday caasimadda Ukraine ee Kiev ilaa iyo hadda ma cadda waxa sababay shilka diyaaradda in ay la xiriirto xiisadda ka dhaxaysa Mareykanka iyo Iran. Kooxaha gurmadka degdega ayaa loo diray halka ay diyaaraddu ku dhacday oo ku dhow halkii ay ka kacday. Madaxa hay'adda laanqeyrta bisha cas ee dalka Iran ayaa warbaahinta dowladda u sheegay in ay adag tahay in uu qofku ka badbaado diyaaradani dhacday. Ali Khashani oo garoonka diyaaradaha Imam Khomeini u qaabilsanaa la macaamilka dadweynaha ayaa telefishinka dowladda Iran u sheegay in diyaaraddu markii ay dhacday uu dabqabsaday. 160 qof oo rakaab ah iyo 9 shaqaale ah ayaa ku dhintay. Sababta keentay shilkan diyaaradda ayuu sheegay in ay u badan tahay cilad farsamo. Maxamed Shookar, Cable TV.